wasiir ku soo dhow telefishinka Home Cable sidee bay wax u dhaceen wararku waxay sheegayaan inuu jiro qaad aan caafimaadkiisu wanaagsanayn amaba sumaysan oo ka yimid dhinaca deegaanka Oromada oo dad ay wax ku noqdeen sidee bay wax u jiraan waad maaqanta Cabdi Shakuur waad maaqantahay Cabdi Shakuur waa arrintaasi way jirtaa runtii markii hore ilaa shalay ilaa daraato maxaan ku arrinta waa la saddex marayay arrin sida aad u maqashaan kale aan u maqalay bay maartay ahayd hata yeeshee ilaa iyo maanta waxaan xaqiijinay dad xanuunsaday oo markay ilaa 4 saacadood ugu dambeeyay qaylaha qaadka wadayga aan ku xanuunsaday qaarkood maxaan ku dhiig ma tageen marka runtii dhakhaatiirta ka yaalaan dad jijiga oo lagu baaray laguna xaqiijiyay waliba jaaca cunaan ku sumadeen marka ma dadka uun baa la baaray wasiir mise waxa sidoo kale la baaray caleentii qaadka oo sunta laga helay runtii marka jaaca in la baaro ilaa uu baahan yahay laakiin dadkii cunay ayaa la baaray isku kaysna way noqdeen waliba dadkan marka sunta laga helay ma aha dadka jaadadka noocyadiisa kala cunay ma aha waa dadkii qaadka jaadkana wadayga loo yaqaano oo Soomaalidu runtii aad ay u cunto cunay bay ahaayeen isku xilliyada qaadka bilaabeen qaylaan baan maxaa ku leeyahay kala qabtay in aan wixii ugu dambeeyay cunaan ay ku sumadeen dad dhakhaatiirta cadaysan markii la sheegay marka tiraahan dadka haatan arrintaasi caafimaad darrada ka qaaday waa tiraahan teebay leeyihiin ilaa iyo marka waxa dhakhtarada yaaleen uguna waa 320 ruux weeyaan oo xanuunsan oo dhakhtarka maxaa ku leeyahay la baaray 320 ruux ay gaaraysa tirada Cabdi Shakuur marka ilaa iyo hadda maxaa talaabo la qaaday qaadkii suuqa wali ma yaala mise waa talaabo laga qaado wala joojiyay ما ولا الحويان أنا وفنتي حكومة هان حكومة مرتبة قام بكفة صارتي شاكا وضيعة ولا تشوي شادت ككلا دم لم يبقى إيه كل يوم الكهرباء يعني تعسيك كشرنا يستدق فين تبدأ سوماليا أو ما كلا ولا ديلا فقولوا دارنا ولا كلا دار ولا شيء سومالي لام بيت لام وشيء كود إنتين كنا تعسيك وجي أنا كشرنا فترة كهرباء نقاس وأنا ما كلا حالة نقولنا دراسة يعني سو قليل حتى أنا رنتي حكومة قام بكفة قاعدة مركزة haddii wasiiran ku weydiiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dadkaasi dhowr iyo 30 ah ee dhintay maalmihii la soo dhaafay hadda xaaladdu waa sidee horta sababta Cabdi Shakuur dadkan dhintay intooda badan waa dad naasiyo weeyaan maxaa ku leeyahay meesha loo yaqaan aaladda ku dhintay intooda badan ama kulligoodba waa dad naasiya oo mushtariya oo maxaa ku leeyahay shaqooyin kala duwan ka shaqaysanayay mushtari meherada kala lahaa dadkii maqaablaha ay qaadka ka shaqaynayay dadka waxa la sugu daray in la laayo oo maxaa ku leeyahay waliba si xun loo dilo oo banaanimada ka baxsan waliba maxaa ku leeyahay dadka dhulkan xoolahoodii iyo wixii lacag xitaa taashu yaalayna ama la hanti kale u taalan in la qaato la isku daray dhibaatada runtii deegaanka heerkaas ay gaadhay waana arrin markaad eegtay yani isir la dagaalan oo Soomaalidu sheegtay ama loo yaqaanay laba dad yaqaano oo meesha maxaa ku leeyahay deegaan muddo badan ayaa la taago la baaray qaab toolshano banaanimada ka baxsan runtii dadka loo laayay maxaad ka jira wararka sheegaya wasiireen in arrintaasi ka dhacday haawaday ay xiriir la leedahay arrimo kale oo dhinaca amaanka ah oo xuduudda Soomaalida iyo Oromada xiriir miyay leeyihiin mise waa arrimo kala madax bannaan ma horta waxa weeye wasaaradda maamulkan ama xukuumaddan Oromiya muddo badan waxay ku jirtay dhul ballaarsi nidaam loo yaqaano macnaheedu in ay dhul ballaarsi wax la deegaanka Soomaalida ay Itoobiya ay dhul ka qaataan ayay muddo badan ku dadaalayeen sidoo kale nidaamka federalismka ee dadka Soomaalidu deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan ay ku adag yihiin ayay yani aad iyagoo waxan ayay dhibaatooyinka xuduudka oo dhan runtii dhibaatooyin badan ka geysteen sababtiin dagaalo badan baa meelaha qaarkood ka dhacay dagaalada ka dhacay waxa weeyaan dad shacab oo qabiilo isku dhacay ahaayeen qabiilo Oromada iyo qabiilo Soomaalida ay isleenayeen markii qaabkaas u dhacday in dhul ballaarsi sameeyeen ay suuro gal weeyeen ay waxba kaga qaadi kar waayeen ay markaa runtii xaaladda kale u soo gudbeen in dadka la dagaalamaan xeerarka soo kale kulaa kala sameeyeen dadka maasiyada gudahooda jooganayaan in haddana jaadkan haddana ay Soomaalidu aad u sameeyaan haddana aad loogu go'o xeeladaha ka isticmaalaan runtiina ma aha arrin marka la oran karo dad nabadiga oo wanaag iyo dad kaliya ka dambeeya ma aha maamulka ama xukuumadda ka jirta Oromiya ayaa arrintan dabada ka riixaysa oo runtii arrinta ku raacsan hogaanka nabadgelyada deegaankaas fulinaya madaxweynahooda mas'uulka oo ku raacsan in la laayo shacabka Soomaalida ee ku dhex dhaqan ama Soomaaliya ka soo jeedo ama Soomaalida Itoobiya ka soo jeedo ilaa hadda dawladda federaalka Itoobiya maxay wax talaabo ah qaaday isu socodku soo waasiday runtii dawladda federaalka Itoobiya talaabooyin fiican bay qaaday in maxaan ku leeyahay amaanka la sugo oo in la intii Itoobiya dhibaato ma dhicin in dadka joogay halkaas la soo badbaadiyo oo la soo qaado sidoo kale anagu talaabooyinka la qaaday macnaha xukuumadda federaalka ku dheegayo naga qayb qaadanayo yani dadkii xaggan joogay Oromada ahaa in aan dhibaato loo geysan daraaddeed in dadkii uu galiyay uu kaaya waxa la ururinaya ilaa iyo sharaf in dadka maxaan ku leeyahay in nabadgelyo lagu gudbiyo oo ciidanka militariga lagu wareejiyo dawladda federaalka lagu wareejiyo dadka kadib xaqooda la soo dhaafiyo loo geeyay si nabad qaba ilaa runtii ilaahay ma ka xaween ilaahay maadii hal qofna
wax hal ruux Allah ka ilaahdo lagu yeelin deegaanka